iyadoo toddobaadkii la soo dhaafay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Galmudug lagu sheegay in ay dawladda dhexe ay faragelin ku hayso maamulka Galmudug ayaa maanta shir jaraa'id uu madaxtooyada ku qabatay wasiirka warfaafinta dawlad goboleedka Galmudug Masar Gawa ayaa waxa uu mar kale ku celiyay in ay dawladda dhexe faragelin ku hayso maamulka Galmudug madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya uu sheegay in uu faragelin ku hayo maamulka Galmudug dawlad goboleedka Galmudug waxay mar kale cadeynaysaa faragelinta qaawan ee madaxda dawladda federaalku ay ka wadaan gudaha dawlad goboleedka Galmudug sida ku cadeyd war-saxaafadeedkii 11 Sebtembar 2018 ee ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug oo aan ku cadeynay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu faragelin ku hayo Galmudug arrimeeda hoose isagoo fulinaya ballanqaadkiisii ahaa inuu kala shaqeynayo duminta Galmudug gudoomiye hore ee baarlamaanka Galmudug mudane xildhibaan Cali Casir Gacal sidaad la socotaan waxa 14 bishan magaalada Cadaada ka degay xildhibaan Cali Gacal Casir oo ah gudoomiye hore ee baarlamaanka Galmudug balse ay kalsoonida kala laabteen xildhibaanada Galmudug iyo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug mudane Maxamed Xaashi Cabdi si loo carqaladeeyo dadaalada iyo howlaha dib u heshiisiinta ay ka howlan yihiin siyaasiyiinta iyo samadoono reer Galmudug ee ku sugnaa Cadaado safarkan oo laga soo abaabulay lagana soo agaasimay villa Soomaaliya taas oo ay ka soo muuqato ifafaale aad u xun keenina kara si kala fogaasho Galmudug iyo dawladda federaalka waxaan cadeynaynaa wixii cawaaqib xumo ah ee ka dhasha faragelintaas waxa mas'uuliyaddeeda qaadi doona madaxda dawladda federaalka Soomaaliya haddaba waxaan dadka reer Galmudug gaar ahaan reer Cadaado u soo jeedinaynaa inaysan ku milmin kana qayb qaadan howlaha duminta iyo carqaladeynta dawlad goboleedka Galmudug maadaama ay Cadaado tahay xuduntii dhismaha dawlad goboleedka Galmudug haddaba waxaan ugu baaqaynaa waxgaradka ururada bulshada rayidka ah beesha caalamka iyo dawladaha daneeya arrimaha Soomaaliya inay si dhow ula socdaan xadgudubyada ay madaxda dawladda federaalku ku hayso arrimaha dawlad goboleedyada gaar ahaan dawlad goboleedka Galmudug dhammaad u bilaaw tawfiiq Cabdulfataax Maxamed Axmed Galmudug TV Dhuuso Mareeb